maalin wanaagsan saaxiibada aan ku saaxiibnay janaalkana gundhiga wararka waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka ugu waaweyn ee maanta. qodobada wararkeena waxaa kamid ah gudoomiyihii xilka laga qaaday gobolka Hiiraan Durbo waa uu ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay asaga oo sheegay in ciidamo taabacsanna ay la wareegeen magaalada Beledweyne xog buuxda in kaga haya dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya magaalada Beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada. ururka al-shabaab wali waxay ku sugayeen deegaanka af urur oo dhaca duleedka magaalada Boosaaso oo halkaas ciidanka Puntland ay kala wareegeen xaaladda Boosaaso in eegi doonaan saamiga ay ku yeelan doonaan ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo la shaaciyay shidaalka laga qodayo deegaanada ismaamulka Soomaalida Ethiopia. xog buuxda in kaga haya saami intee la eg ay ku yeelan doonaan Soomaalida ku nool dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. warbixin gaar ayaad ku dhageysan doontaan. khilaaf xooganna waxa uu soo kala dhexgalay ahlu sunna iyo waliba maamulkaasi Galmudug halka uu gaarsiisan yahay khilaafkan iyo waliba xog dhameystiran kaga haya madaxweynaha Galmudugna Durbo xilka qaadis ayuu sameeyay xubnan waa uu magacaabay wadageysan waa daawan doontaan xog buuxda arinta ku saabsan iyo xubno hore kaga mid ah ururka al-shabaab oo markan awood buuxda ku dhex yeeshay ciidanka booliiska Soomaaliya. u diyaargaroow wararkaasi kuba kale inaad ka daawataan janaalkan waxaa soo ka hormaraya deegaanka af urur oo shalay ay la wareegeen ciidanka ururka al-shabaab. shalay gelinkii hore ayaa iyadoo aan waxba dagaal ka dhicin ayaa waxaa gacan ku haynta tuulada la yiraahdo af urur oo qiyaastii 90 kiiloomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa la wareegay ciidamo taawacsan ururka al-shabaab. la wareegista ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidanka Puntland ay iskaga baxeen waxaana xaaladu deegaankaasi gacan ku hayntiisa la wareegay ururka al-shabaab. wararka maanta naga soo gaaraya deegaanka afur waxa ay sheegayaan in wali al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanka afur balse duleedka deegaankaas ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan ciidanka Puntland. saraakiil iyo waliba madaxda maamulkaasi Puntland wali ma aysan ka hadlin sababta ciidamadooda ay iskaga baxeen deegaanka afur oo kamid ah deegaanada muhiimka ee Puntland. deegaanka afur ee gobolka Bari ayaa hadda ka hor waxaa ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan. ugu dambeynna deegaankaasi suurto gashay in gacan koontiisa ay la wareegeen al-shabaab walow mar dambe al-shabaab iskaga baxeen deegaankaasi waxaana dagaalada xilli ah ka dhacay halkaasi ku dhintay xubno muhiim u ah maamulka Puntland gaar ahaan askarta maamulkaas oo dagaalkaasi lagu dilay. wixii warar ay ku soo kordhay saaxiibayaal isla janaalkan ayaad ka daawan doontaan xaaladda deegaanka af urur oo halkaasi wali dhaqdhaqaaqyo ciidan laga soo sheegayo. wararkeena kale waxaa kamid ah markana Hiiraan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta la wareegay ciidamo taawacsan gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. isla Dabageed qudhiisa ayaa waxyar ka hor warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne wuxuuna ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo maalinka waa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan oo maalinka hore xilka qaadis lagu sameeyay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha Hiirshabelle iyo ku-xigeenkiisa. shir jaraa'id oo warbaahinta ugu qabtay magaalada Beledweyne ayuu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle uu ku amray in ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda ay ku sugan magaalada Beledweyne inay soo xiraan balse asaga uu yahay shakhsi awood leh ana la soo xiri karin sida uu maanta Dabageed warbaahinta u sheegay. waare iyo cali guudlaaw xiritaankooda ima qabto laakiin waxa ay noo yaala sharci ah in qaab nidaam aan ku kala baxno suurtagalna ma noqonayso in dhaqaalaha Hiiraan ay qaataan labadaasi shakhsi ayuu ku sheegay shirkiisa jaraa'id Yuusuf Dabageed. madaxweynaha Hiirshabelle iyo waliba dhammaan mas'uuliyiinta kale ee maamulkaas ayaa sheegaya in dhaqaalaha kasoo xarooda magaalada Beledweyne lagu shubi doono akoonada gaarka ee maamulka uu leeyahay. hadalka gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyihii hore xilka laga qaaday ayaa u muuqda mid uu ku diidan yahay xilka qaadista lagu sameeyay uu ku sameeyay madaxweynaha Hiirshabelle waxaana soconaya xalin arintaasi ay ku jiraan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Hiirshabelle ay ku doonayeen in lagu xaliyo buuqa hase yeeshee magaalada Beledweyne waxaa hadda gacanta ku haya ciidamo badan oo taabacsan kuba Yuusuf Dabageed kana soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay. wixii warar saaxiibayaal ku soo kordhay isla arinta Hiiraan waa daawan doontaan qeybaha kale wararkeena ku jira. madaxweyne Xaaf waxa uu xilka qaadis uu ku sameeyay xubno maamulkiisa kamid ah sidoo kale waxa uu magacaabis uu sameeyay. wararkii ugu dambeeyay keenina magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Galmudug uu sameeyay xilka qaadis ee magacaabis Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu soo waramayaa in xilka uu ka qaaday gudoomiyihii gobolka Mudug
asagoo magacaabay gudoomiye cusub oo gobolkaas u yeelanaya Cabdiraxmaan Cali Diriye ayaa madaxweyne Xaaf u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug halka Dr. Diriye laga sugayo inuu qabto shaqooyin culus oo badan oo gobolka ku saabsan. Madaxweyne Xaaf ayaa warqadiisa magacaabista waxa uu faray hay'adaha ammaanka ee ka howlgala gobolka Mudug inay la shaqeeyaan gudoomiye Cabdiraxmaan. sidoo kale hay'adaha garsoorka ee ka howlgala gobolkaasi Mudug ee Galmudug ayaa la faray in madaxweyne Xaaf in ay la shaqeeyaan madaxweynuhu waxa uu faray inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee gobolkaas u soo magacaabay waxaana xilka laga qaaday gudoomiyihii hore. warar kale aan helin waxa ay sheegeen in khilaaf culus oo soo kala dhaxgalay madaxweyne Xaaf iyo waliba xubnaha ururka Ahlusunna. khilaafka ayaana salka ku haya doorashada la qorsheynayo dhamaadka sanadkan inay ka dhacdo Cadaado. Xaaf ayaa kasoo horjeeda doorashada inkastoo Ahlusunna la tilmaamay inay aqbasho doorasho ka dhacda halkaas ay ku mowqif noqotay dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda ayaana federaalka Soomaaliya wada qorshe ay ku doonayso in deegaanada Galmudug ay ka dhacdo doorasho lagu doorto hoggaan cusub. inkastoo madaxweynaha Galmudug qudhiisa uu sheegayo in uu kasoo horjeedo una dhameysanayo waqtigiisa xilhaynta uu kasoo bilaabanayo sida uu sheegay 2017 kuna eg 2020. inkastoo xubnaha Ahlusunna madaxda ugu sareysan ay aqbaleen hadalka dowladda ee ahaa in dhamaadka sanadka la qabto doorasho ay ku wada qanacsan yihiin dadka ku nool deegaanada Galmudug. khilaafkan lama oga sidoo ku saameyn doono maamulkaasi. wararkeena kalena waxaa ku jira saamiga ay ku yeelan doonaan ismaamulka Soomaalida ayaa la shaaciyay shidaalka la doonayo in laga soo saaro dhulka Soomaalida. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Ethiopia ayaa la sheegay inuu ansixiyay saamiga ismaamulka Soomaalida ay ku yeelan doonaan shidaalka laga helayo dhulka ismaamulka. xubnaha aqalka sare ee federaalka Ethiopia ayaa meel mariyay in 50% dhaqaalaha ka soo xarooda shidaalka laga helayo gobolka Soomaalida uu yeelan doono ismaamulka Soomaalida Ethiopia. arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo ra'iisul dalka Ethiopia Abiy Ahmed marar badan uu ka hadlay hadallo la isla dhaxmarayay oo sheegaya in Soomaalida 5% ay ku yeelan doonto saamiga shidaalka. waxaana hadda muuqata in taasi ay meesha ka baxayso maadaama 50% la xaqiijiyay in ay yeelan doonaan shacabka Soomaalida ee ku nool deegaanada hadda shidaalka laga qodayo. laakiin Abiy Ahmed oo arrintaani bidhaamiyay ayaa sheegaya in 5% ay leeyihiin dadka deegaanka ee laga helay ceelasha shidaalka uu saameyn doono daaqaha iyo beeraha saamiga lagu siiyay saami dhan 5% sidaa darteed ay ku heleen. marka laga yimaado in 50% ay yeelan doonaan Soomaalida dhulkooda ee shidaalka laga helay aqalka sare ee baarlamaanka ma aysan shaacin sida laga yeeli doono inta kale ee ka hartay dakhliga ka soo xaroon doona shidaalka. dhulka Soomaalida ee sanado badan shidaalkan laga baarayay ayaa ugu dambeyntii laga helay waxaana ka shaqeeyay shirkado laga leeyahay dalkaasi Shiinaha oo hadda bilaabi doona soo saarista shidaalka. qeybihii dambe warkan ayaan soo gaarnay. Al-Shabaab waxa ay sheegeen inay weerar ay ku dileen 13 ka mid ah askar u dhalatay dalkaasi Djibouti ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. iska horimaad xoogan oo ka dhacay duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa Al-Shabaab waxay ku sheegeen in 13 ka mid ah askarta AMISOM una dhashay wadankaasi Djibouti ay ku qarijeen halkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen ciidamada Djibouti oo saldhig ku leh halkaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa qoraal ay soo dhigtay barta ay warkooda ku faafiyaan waxay ku sheegeen 13 askari una dhashay wadankaasi Djibouti in lagu dilay. idaacadda Al-Andalus ee kooxda Al-Shabaab ay leedahay ayaa sidoo kale baahisay qoraallo iyo macluumaad la xiriira ciidanka Djibouti laga gubay gaadiidka dagaalka iyo waliba ciidan kale oo Burundi oo ina isku dayay in caawimaad u faydiyaan ciidankaasi oo ayna gaadiidkooda laga gubay. hase yeeshee goobjoogyaal waxa ay sheegeen in ciidanka Djibouti ay la kulmeen weerar dhabagal ah oo wadada lagu galay kadibna ay khasaare ka soo gaareen. ma jirto war cad oo ka soo baxay ama ila madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab sax ahaansheeda waxaase wali aan war ka soo bixin taliska ciidanka AMISOM ee Djibouti ee ku sugan gudaha Soomaaliya la xiriira sax ahaanshaha warkan ay hadda Al-Shabaab ay baahiyeen. gudahaan wararka aad ka daawanaysan janaalkeena ee gundhiga wararkan saaxiibayaal halkaas aan kusoo gabagabeynayna daawada haddaad ku cusubtay qaybta hoose ee commentiga lagu rabo wixii aragti ah